moogtahay inay kuwan yihiin dad yuusi layaab la ku galay buuga dhacdooyinka adduunka. midka ugu dambeeya ayaana in badan ka yaabin doona. kow, Jovan Carter. ninka waxaa lagu magacaabaa Jovan Carter, wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa oo uu dhashay dalka Mareykanka. wuxuuna buuga dhacdooyinka adduunka ku galay inuu sankiisa iyo afkiisa isku hayn karo isagoo neefsanayn oo neefta isku calinaya. sidana cid kasta maaha mid ay samayn karto, sababtoo ah isaga xaalad caafimaad daro ayaa u saamaxday. wuxuuna ninkani sidaas ahaan karaa 1 minute iyo 2 sekin. muuqaalka wejigiisuna waa mid la yaab leh. wuxuuna sidaas ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ee World Genius Record. 2, Benny Harlam. ninka waxaa lagu magacaabaa Benny Harlam, wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa oo uu dhashay dalka Ingiriiska. wuxuuna buuga dhacdooyinka adduunka ku galay inuu yahay ninka ugu timaha dheer marka la eego jooga timihiisa. timihiisu waxay madaxiisa ka sarreeyaan dhar aanad rumaysanayn daawade oo macquul aan ahayn, kaasoo lagu qiyaaso 52 sentimitir. isagana waxaad moodaa sidii filim kartoonka carruurtu daawan jireen oo kale, oo maba mooda sidii qof caadiya. wuxuuna sidaas ku galay buuga dhacdooyinka adduunka ee World Genius Record. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, midkii ayaa xoog kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iyagu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saaranna aad subscribe dhahdo.